diyaaradan oo sidee deeqdii waa ka kooban 210 karton ayaa waxa ay gegida diyaaraduhu ka haadaan ee degmada Baran waxay ka soo degtay Akbar labadii iyo barkii duhurnimo ee maanta diyaaradan ayaa dawada iyo agabka caafimaad ay sidey waxa ay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay ugu talagashay in laga hortago xanuunka COVID-19 duqa degmada Baran Axmed Maxamed Timir isduwaha gobolka Sanaag ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda Badhan فاطمة إبراهيم إسماعيل يا عبدالعزيز محمد عبدي أرو كهد لي أفكار برشاد الرئيد كاي دقمة بران أيا وحا أي وزارة عافمات كحكومة فدرالك الصومالية وحا يقال مهاد عليين دوادن إيا أقب كعافمات يا يسوع gaarsiisey دقمة بران إحرمتو قبل كالسناج الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا إلهي بمهد له مركحية وحان أمهد علينا دولة فدرالك الصومالية ومانتو بشو أي شناد لواتن تهي ديق عافمات وأخ قلبك كوفر 19 أقبية كوبان نوسو gaarsiisey gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Baran aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waana gudoonay sidoo kale dawladda Badhan oo iyadana qayb ka ahayd inay gobolka timaado diyaaradu iyo agabka caafimaad ee sidaba iyadana ugu mahad celinaynaa waana gudoonay aad iyo aad baan insha Allah ugu mahad celinaynaa insha Allah meelihii loogu talagalayna insha Allah waa wada gaari doontaa iminkana waxaan ku wareejin doonaa isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka amaal agabkaas oo ka kooban 210 karton insha Allah waxaan ku wareejinaynaa isduwaha wasaaradda caafimaadka baan ku wareejinaynaa goob joognala assalaamu calaykum raxmatullaah maanta halkan waxaan noo timid deeq dowladda federaalka noo soo dirtay wasaaradda caafimaadka qalab ku saabsan xanuunka COVID-19 oo u mahad celinaynaa أنا مثلي وزارة عافمات كقبل كسناج وحن قدومي 210 كرتون وإن شاء الله باهي قبل كوردن حرمي سودان لجو قبولي إن شاء الله وأنا كم هتسيهين إن شاء الله وهم هد علينا دولة فدرالك وزارة عافمات ما أنت وتاريخ التهاي لو أتاك بشمي وحن تاجرنا إيربور كمجالة بران قبل كسناج waxaanu u taaganahay muddo 6 saacadood ku dhow imaatinkii diyaaradii dowladda federaalka ay u soo dirtay gobolka kan gaar ahaan degmada Baran iyo guud ahaan gobolkaba alxamdulillah waana soo gaadhay deeqdii dowladda federaalka si fiican ayaan ugu mahad celinaynaa dowladda federaalka dhammaan dadkii ka qayb qaatay hawshaas fududeynteeda iyo shaqadeeda aad baan uga mahad celinaynaa waxaan aad ugu mahad celinaynaa waliba xubnaha ugu sareeya dowladda federaalka wasiir Jamaal xildhibaan Xaaji Ismaaciil iyo xildhibaanada kale ee gobolka Matala ee ka tirsan dowladda federaalka maanta shucuubta dadku aad bay u faraxsan tahay waa deeqdii ugu horeysay oo soo gaadha gobolkan oo dowladda federaalka ka timi waxaan rajaynaynaa wixii dambe ee gobolkan loogu talagalana inay sidan oo kale toos halkan ugu yimaadaan oo ay dadka dowladda federaalka ay gobolkan u soo gaarsiiso ugu dambeyntiina waxa goobta ka hadlay agaasimaha laanta Baran ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Khaliif Faarax وبعد إلهي بمهد سبحانه وتعالى إنه فضيي إنه سوقرت دودي محن كل هذا سوري في الدولة الفدرالية كنت وحنا ملاين يا مانتا ومالين كدوان مالمها كله ما دام أي ده كتم الدولة الفدرالية هل كان ستة سوقرتي وأنا أقول مهد على إن كستو وكسو شغيسي وحنا ملاين يا سؤال واحد بدن لو يدينا يا أفر سنة ولا هذا الدولة الفدرالية هالماضي وحن رجينا يا مانتا إن شاء الله إنه بلو ويدي تاي سؤال شاسنا إن شاء الله تعالى madaxdu maqli doonaan wax badan baa la weydiinayay laakiin waxa leeyahay geela markii lagu heesayo waxa la yiraahdaa indhayala lowkiisa oo man ila naaymood oo ilmada sayr waa loo yahay baa la yiraahdaa waxaan leeyahay dowladda federaalka ay way noo soo jeensantay insha Allah waana tan hadda wixii ugu horeeyay in soo gaarsiisay cid kasta oo ka soo shaqeysay maxaan ku iraahdaa isduwa caafimaadka maayarka gudoomiyaha dhamaantii waa ku mahadsantii baa leenahay wassalaamu calaykum saraakiisha xildhibaanadii iyo wasiiradii ka soo shaqeeyay oo ka soo jeeday deegaankan iyagana runtii waxaan leenahay si mahad gaar ayaan u celinaynaa saxaafadda oo iyaga ruuxadooda ilaa saaka taagna waxaan leenahay idinkuna aad iyo aad baa mahadsantihiin xasan Ismaaciil Aadan xasan dhigari TV-ga iyo idaacadda dowladda Badhan Baran